وزيرك وقافتي arrimaha diinta dowlad goboleedka Galmudug Dr. Cabdishakuur Macalin Ciise Albadri oo la hadlay Galmudug TV ayaa sheegay in sanadkan Soomaaliya loo kordhiyay qoondada xajka ee sanad walba dowladda Sacuudiga ugu deeqdo shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in halka sanadkii hore ay ka ahayd 9,000 sanadkan laga dhigay 12,500 oo xujay wasiir Albadri ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in Galmudug laga soo wareejiyo qoondada xajka ay xaq u leedahay waxa uu ka digay in la isdabamariyo ama la musuqmaasuqo sanadkan qoondada xajka ee Soomaaliya waa la kordhiyay oo halkii sanadkii hore 9,000 ay ka ahayd sanadkan 11,500 ayaa laga dhigay si cad waxaan ugu sheegaynaa dowladda Soomaaliya una weydiinaynaa horena aan u weydiinay in qoondada xajka ee Soomaaliya ay heshay saamiga ay leedahay dowlad goboleedka Galmudug inay si cad ugu soo wareejiyaan oo ay gacanta u soo galiyaan wayna uga fadhisaa Galmudug arintaas dowladda Soomaaliya waxaana waliba ka digaynaa in la gacan bidixeeyo iyo maaragtay in loo dhaqmo hab yacni aan sax ahayn wasiir Cabdishakuur Albadri ayaa sidoo kale ka hadlay shir dhamaadka bishan ka dhacaya Muqdisho oo looga hadlayo ka hortagga argagixisada Axmed Cumar Galmudug TV xajka arrimihiisa iyo sidaas oo kaleeto shir rajaynayna bishan aakhirkeeda Muqdisho inuu ku qabsoomo oo shirka la dagaalanka argagixisada oo ururka OIC ee Islaamku ay qabanayaan dhammaantood wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Galmudug waxay ku leedahay qayb waana yacni wax iyadu ay u xil saaran tahay oo Galmudug wakiil uga tahay waxay u fadhisaa in ay matalaada shirka iyo maaragtay arrimihii xajka sidoodii in ay u hesho oo aan la musuqmaasuqin oo aan la gacan bidixayn runtii waana qabnaa walaaca ah in la gacan bidixeeyo waa nagu jiraa laakiin dowladda Soomaaliya waxaan leenahay sidii aad u sheegteen musuqa iyo gacan bidixaynta inaad ka hortegaydaan oo ummadda wax loo simayo waxaan ka rajaynaynaa madaxda sarsare madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in arintaas aysan dhicin oo sida saxda ah ay wax loo maamulaan